النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسي وحو كنت المامية حمه هدو كاردعو وانا كدبك وترتر اياي إنسان كسيدي السبب وإنسان straight line وما صعده qofka bini aadamka noloshiisu inta badan waa zigzag kor iyo hoos buu u socdaa waxaa waajib laynagaga dhigay furuudul caynka inaynu ilaalino markaa meel ka sarraysa inaynu istaagno si zigzaggeenu markuu dhaco aynan u hoos weydaaranin sunan tiro badan baa laynoo jideeyey marka waxaa laynaga mamnuucay waxyaabo mamnuucaat ah iyana waxa lagu xeeray waxyaabo makruuhaat ah si aanad kuwa hoose u gaadhin si bini aadam baa tahay haddii qaladba kaa dhaco ilaah ghafuuru raxiima baa jira waxaa layna faray markaa inaynu wanaag ka dabageyno sayi'a kastoo inaga dhacda wanaaggaas baa tirtiraya waxay dhahdaan culammadu dihaabu sayi'aat aw idhaabu sayi'aat laba qaab bay u dhacdaa midi waxa weeyaan inaad marka horeba ku dhicin waxyaabaha keena waxaa ka mid a xasanado aad badsato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu salaada tilmaamayo ina salaata tanhaa can ilfaxshaa'i walmunkar baa layidhi waxay kaa reebaysaa inaad fuxshi iyo munkar ku dhacdo yacni sayi-aday ka hortegaysaa intaanay dhicinba waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya dhaqanno bini aadamku uu leeyay oo cidda qure ka badbaadaa ay tahay musalliinta iyo sifaadka la socda kuwa ilaahay ku sheegay ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jazuuca وإذا مسه الخير منوعا بني آدم كبار ليدي صفة هلوع على يده دولية أو خيركم مركو هلنا ومد كل جوان سيديننا وحبب بحنين نبت مركو قبضتنا ومد عطوية على البدن مركو على بدن لأنكم مفعنا كيف كبد بعد حمهاسي إلا المصلين بإلهي تبتنا الصفات بإلهي صوت حي حق الضمانة وحلقوا جبي kuwa salaadooda xifdiya idan salaadu dhaqan xumadaasay marka horeba kaa ilaalinaysaa waxay dhahdaan cahdigii nebiga saxaabada nin baa la sheegay salaada habeenkii uu kici jiray salaatuleyl laakiin weli haddana gacantiisu wax yaro qaadqaadi jirtay markaasay ka warrameen oo waxay dhaheen ninkani habeenkiina waa tukadaa waxna waa yaro qaadqaadaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam إن صلاته ستنهاه سيدا أشياء هدي جرتو صلاة دي ساكر ريبيسا وحلا مركا حسناتو مركا كواد هداي حسنات كاغو في عينهين سيئات كويكا إلى لنيا هديبا أي كارد عضنا سيئ أردن حسنات ترترتا لكن حسناتو حيكو حرنتي سيئات النوع عايتي ومثلا حسنة التوحيد ده waxay tirtirtaa shirki iyo wixii ka hooseeyay oo dhan markuu qofku tawxiidsado gaalnimadiisa iyo wixii ka horeeyay oo dhan buu ka baxaa xasanatu tawba waxay tirtirtaa kabaa'iru dhunuub in al-islaam yahda ma qabla wa in al-hijrata tahda ma qablaha in al-hajj yahda ma qablaha ay nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalaam idan xasanaadka noocaasi هديتي التوحيد أما هديتي حسنة التوبة وحي ترتيران سيئة دمان تيدورن حسناتك انت كهوسية هدات كبائر تكدركته إذا اجتنبت الكبائر أعماش عادية إنه سمين إنما سيئات كيريرون ترتيرا سيدي علماء التلمامان وواكي نبي تلمامي عليه الصلاة والسلام صلاة إلا الصلاة ومكفرات لما بينهن انت ودا حيسيتر ترتا جمعة إلا جمعة انت ودا حيسيتر ترتا صون إلا صون انت ودا حيسيتر ترتا إذا اجتنبت الكبائر بنبوي هدي كبائر تلقى دركه وهي وحي علماء انت بداني لهذا كبائر الطوبات بيوبا انت
laga yaabaa inaad su'aal isweydiiso oo salaad ilaa salaad hadday tirtirtay oo salaad waliba intii ka horreysay tirtirtay jimcuhu usbuuca muxuu tirtiri markaa maxaa soo hadhay oo haddii la yidhaahdo jimce ilaa jimcuu tirtiraya muxuu tirtiri doontaa ramadaantu waxaan leenahay acmaashaynu samaynaa kullahaa ma wada xoog badna ama maqbuul ma wada ahaba مثل النبي عليه الصلاة والسلام وتلماميا صلاة إنه تكنينه مدبا صلاة دي تصعها لا أقبل ثمونها سبوعها سدسها خمسها أيوة النبي سوى ذي إذا سفك وقوة جرنا صلاة دي مغرب لكن وإسكبا يرتي 100% لكن لقى أقبل وحلقا يابا 10% 12% دي 12% مركا الدم بقاد ما أنتو دلدل يسمى وضع ترتري كرتو إن شاء الله تدنبا إنتي لغو كردينيا marka waxoogaga jaaba aad la timi marka la isku dardaro waxbay nadiifin hadii wax ka soo hadhaan jimcihii baa nadiifin hadii wali wax ka soo hadhaan oo aan wali waxa waanay sayaadkaaguna de iska tira badayay waayo dhagtiya afka qura hadaynu eegno waagu markuu bariyo ilaa intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlayso ama mid hadlaya dhageysanayso intee ba khayraad u malaynaysaa marka waagu saaka markuu ku bariyaad soo kacday ilaa caawa intaad ka seexanayso ama adaa hadlayay ama mid hadlaya dhageysanaysay ama TV dhe ama WhatsApp dhe ama waxa doonta dhe intee ba xasana ase intee ba sayi'a baad u malaynaysaa sayi'aadku marka waxba yaryaraysanayso dhan adigu wadaad baato wallahi shantiina waa tukataa meelaha waad iska fiicantay maanta ba waa daldalmaysa waxa sheegaysayna khayrku kuma badnayn إذا waxaynu u baahannahay inaynu aqli soo jeeda yeelano ku dadaalo inaynu sayi'aadkeenu waa tira badan yihiin inaynu xasanaad tira badan ka dabageyno ilaahina waa ka tilmaamay illa man taaba wa aamana wa amila amalan saalihan fa ulaa'ika yubaddilu Allahu sayi'aatihim hasanaat kuwii toobad keenay ee iimaan laga helay ee amal wanaagsan sameeyay kuwa ilaahay wuxuu leeyahay sayi'adoodii hore qabla islaam sameynayeen ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xasanaat haddaba qofnaba kama maarmo toobad nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa tilmaamaya axaadiista saxiixa ah akthar min 70 mara aw 100 mara inuu toobad keeno isagoo macsuum oo ilaahay doortay isagoo ilaahay rasuulkiisiiya فما بالك dadkeena ka hooseeya maxaad u malaynaysaa marar badan cibaadadeena u baahan laga istighfaalaysto oo aanu cuntamin wax ilaahay la hortagaba inay noqoto inay dambi ka rogto daayeen walidaalka baa in badan waxaad arkaysaa nusuusta istighfaartu cibaadaadka dabadood bay soo aroortaa salaada markaynu tukanno markaad salaamo naqsataa lagu yiri waxa ugu horeeya aad tiraahdo ha noqdo maxay astaghfirullah 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 cibaadada samaysan maxaad ka istighfaalaysanaysaa yani waxaad garanaysaa wax rabbi lala waajahay inaanay ahayn intii yaraydaadi marka samaysay dabeetana waa jabraanu naqs wixii gaabnidaadi baad rabtaa inaad ku dhammaystirto marka yan walaaladan waqtiga u soo koobayaa waxaan ku gabagabeynayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu inoo tilmaamay wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha sayi'aadka tirada badan la aynu samaynayno xasanaat inaynu ka dabageyno wardi ha noqoto quraan la akhriyo ha noqoto dacwo la sheega ha noqoto salaad la tukada ha noqoto dikri kaloo lala yimaado ha noqoto khayr inaynu ka dabageyno ilaahina wuxuu inoogu tilmaamayaa aayadku sheekhu akhrinayay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat